ثم الصلاة والسلام على رسول الله. إلهي بقى مهد إسكاله سوكان كان ماشة maanta waxaan joognaa xafiiskii taliyaha asluubta gobolka Togdheer waa nabad qabnaa dhamaantaya ragayigi maxaabiista ah oo lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay maalintii dhaweyd meesha la yiraahdo Goojacade adigu waxaan propagandada iyo wax dadka sii kala fogeeyay weeyaan wax aan qabno oo liba ma jiraan dhaawacayga ana hadda intaan xirxiran ana ugu dhaawacliitay anigana inta waleela tacaalaya ragii kale raaca la soo saaray waa la baaray maanta laga bilaabo waxaan leenahay dad goba gacanta lagu dhigay oo nasaba oo si hufan noola dhaqmay oo qaraabadayada iyo ehelkayga dadkii noo imaanayeen noo soo deynayay si qurux badan baan noola dhaqmay waana aragtaan maanta wax naga muuqda ma jiraan gurigii shalay aan ka soo dagaal tagnay iyo kan waa isku mid wixii khilaafaada wixii lagu dhamaysanay iyaga u taala laakiin anagu tolkayay iyo gacalkay ehelkooda gacantooda ku jirnaa maanta sharaf maanta noo laaban ma jirto dadka yaa la sharaf dil waa iga dardaaran dadka yaa la sharaf dilin nalama layn nalama tacad jir dilin nalama kuma tacadiyin warso marxaatiga ma aydin dadka kale oo bulshada kale oo gobolada ku sugan halkan gobolkan dad anaga abaan kula kulmay oo jooga oo si fiican loola dhaqmayo oo si fiican noogu imaanaya maxaabiista kale halka ku sugan dadkooda iyo ehelkooda si fiican hawlo kulmaan oo loo sii daayo oo hala kulmaan sida anaga loogu sii daynayo oo kale ayagoo anaga nala mid yihiin waqti salaan kadib waxaan ka warbixinayaa anagu waxaanu hayn maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii 18kii bisha tan Laascaano halkan hadda laba bari baan joognaa waa barwaaqaysanahay ragga halkan sagaal baan nahay sagaalkan wixii dhaawac ah waa la daweeyay wixii hadda waxa sayeen si wanaagsan baa loola tacaalaya inteeda kana waa barwaaqaysanahay waa caafimaadkooda waa fiican yahay waa daawanaysaan in khiyaaray marka dadka magaxmada iyo samaxmada wadanka marin waxaan leenahay warkaas halka ku haro khiyaaray haddana raggu waa barwaaqaysan yahay gurigooda baa laga soo qabtay gurigooda way joogaaneen sida loola socdo dhamaan Soomaaliyeed meel joogto waa isku mid gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo ayaa kormeer ku tagay xabsiga weyn ee gobolka Togdheer oo ay ku xidhayeen maxaabiistii laga soo qabqabtay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxaana gudoomiyaha xabsiga ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta asluubta ee gobolka Togdheer gaashaan la sare jaamac baadi isagoona ugu warbixiyay tirada maxaabiista soo gaadhay xabsiga gobolka Togdheer iyo sidoo kale waliba xaalkooda waxaanu joognaa xabsigii Burco waxaan ugu soo booqday barasaabka gobolka taliyaha booliiska waxa kale oo halkan fadhiya maxaabiistii maalintii dhaweyto la keenay ee dagaalka lagu soo qabtay oo anaga ka xabsi ahaan ka kooban intana soo gaadhay 9 nin weey 9 ka xubnood ee soo gaadhay 3 waxay yihiin 3 noo dhaawaca 6 kalena way bad qabaan runtii marka laga hadlayo sidii dhaqanku ama caadadu ahaan jirtay waxay ahaan jirtay waa la dagaalamaa raggu u dagaalamaa isku hor yimaada caadaday ahaan jirtay iyadoo weligeedba la istilayo in qofka saacada gacanta lagu dhigo in la badbaadiyo waa dhaqankeennii iminkana waa arkaysaan maxaabiistii oo waxba qabin wada labisan 3 maxbuus ee anagu aanu gacanta ku hayno 9ka 3 kamid ah dhaawaca laba iyagu waxay noqdeen sawiraanu geynay waa la sawiray laba waxay noqdeen dhayme oo rasaasi kuma jirto dhaqaatiirta u xil saaran waa la daweeyaa waa la dhayaa hal nin oo ninkii gaashaanlaha ahaa korneelka ahaa ee maxaabiista kamid ahaa qalleyn buu noqday isagu hawshiisii waanu ku jiraa haddii ilaahay idmo isagana waa la kabi doonaa waa la daaweyn doonaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo isagoo u mahad celiyay ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer guud ahaan gobolka Togdheer ee xaruntiisa Burco waxa soo gaaray 12 maxbuus sida taliyuu sheegay waxa jooga xabsiga 9 maxbuus oo 3 dhaawac tahay fudud 3 kale waxay yaaneen cusbitaalka ayaa lagu dabiibayaa
sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ciidanka asluubta gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco oo si wanaagsan oo qiimo leh maxaabiistii soo gaadhay nolol dhaqmay ilaa haddii la haydmo inta ay joogaanna si wanaagsan oo dadnimo leh oo xushmad leh oo dhaqanka reer Somaliland iyo guud ahaan soo yaqaanay in maxbuus in la wanaajiyo la maamuuso la dhaqaaleeyo intaba ay haddii la haydmo ay tahay runtii waxaan arkayay baryahan social media ee dad propaganda iyo been ka wada oo sawirro photoshop runtii isu geeynaya oo le maxaabiistii dagaalka lagu qabtay waxa lagu laayay waa la laayay Burca lagu laayay Gooja Cadaan lagu laayay arrinkaasi maanta waxaanu cadaynaynaa bulshada reer Somaliland gaar ahaan guud ahaan inta afka Soomaali ku hadasha inay maxaabiista yihiin maanta dadka ay hor fadhiya runtii de quruxda badan Ibrahim Faarax Macaane MMTV Burco